ilaahna wuxuu yiri ilaahay wuu yiri ereygiisa ayuu ilaahay ku abuuray wax kasta oo abuuray ereyga ilaahay kalimatullah ciise masiix laftiisa ruuxi ilaahay iyo kalimadii ilaahay ayaa waxay soo wadeen jid bini aadan oo waxay inoogu yimaadeen iyaga oo ciise masiixa qorshe uu ilaahay adduunka ka lahaa darteed sidee ayay taasi ku dhacday ilaahay markuu Maryam u soo diray malaku Jibriil ee uu ugu bishaareynayay inay ciise masiix dhali doonto iyadoo oo bikra ah waxa ku qoran injiilka kolkaasa Maryam waxay malaa'igtii ku tiri sideeba waxaan u noqon doonaan anigu ninna garan maayo ama wali nin uma tagin oo bikra ayaan ahay sideebay u noqon kartaa in anigoo bikra oo aan ninna u tagin inaan ureysto oo aan dhalo cunug malaa'igtii baa ugu jawaabtay ruuxa quduuska ama ruuxullah ayaa kugu soo degi doona oo xoogii kan ugu sareeya ayaa hoosiisku noqon doona sida daraadeed kan quduuska ee ka dhalan doona waxa loogu yeeri doona wiilka ilaah oo waxa soo dhan waxay u dhaceen in la arko wixii rabbigu kaga dhaxadlay nabiga waa nabi Ishacya oo noolaa 700 oo sano ciise masiix goor waxyigiisi gabadh bikrada ayaa ureysan doonta oo way umuli doonta oo wiil bay dhali doonta magaciisana waxa loo bixin doona Emmanuel kan macnihiisu yahay ilaah baa nala jooga ciise masiix wuxuu ahaa ruuxi ilaahay oo jid bini aadan soo huwaday oo ina dhex yimid